maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan halkani waa SYL Channel ku soo dhawaada xog ku saabsan abaalmarinta xidiga ugu fiican ee UEFA xiriirka qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay liiska saddexda xidig ee isugu soo haray abaalmarinta UEFA Men's Best Player Award waxaana nasiib u yeeshay xidigaha Cristiano Ronaldo Casemiro kept on going, fed it for Ronaldo! Of course! Ronaldo! Mohamed Salah Just come a long way, Firmino! And Salah got that ball in the blink of an eye. iyo Luka Modric Cross dealt with by Fernandes. Modric! Fernandes in full stretch with a terrific save. balse waxaa laga waayay xidiga reer Argentina ee Lionel Messi guuleystaha waxaa lagu dhawaaqi doonaa iyadoo lala mataaneynayo abaalmarinta xidigta ugu fiican qaaradda Yurub iyo sidoo kale abaalmarinada kale ee boos walba tartanka UEFA Champions League ee fasalkii la soo dhaafay maalinta la sameeyo isku aadka wareega guruubyada tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo aadan 30 bisha Agoosto ayaan lagu qaban doonaa magaalada Monaco hana iloobin in maalinta xigta ee 31 Agoosto la bixin doono abaalmarinta xidiga ugu fiican tartanka UEFA Europa League oo ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid musharaxiinta Luka Modric oo ka tirsan kooxda Real Madrid iyo xulka wadanka Croatia ayaa kamid ah xidiga reer Croatia wuxuu ku guuleystay koobka UEFA Champions League ee fasal ciyaareedkii la soo dhaafay sidoo kale waxa uu kaalinta labaad ka galay koobkii adduunyada iyadoo loo doortay xidiga ugu fiicnaa ee tartankii lagu soo dhameeyay wadanka Russia Cristiano Ronaldo waxa uu ka gaaray wareegga 16 koobka adduunka ee lagu qabtay wadanka Russia sidoo kale waxa uu kooxdiisa kula guuleystay koobka UEFA Champions League waana ciyaaryahanka ugu badan ee abaalmarinta ku guuleystay 3 jeer ayuu haystaa sidoo kale markii lixaad ayuu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu goolinta badan koobka UEFA Champions League Mohamed Salah ayaa kamid ah musharaxiinta xidig reer Masar waa kan kaliya ee ka soo jeeda qaaradda Afrika kaas oo ka soo muuqda musharaxiinta abaalmarintan tan iyo markii la bilaabay wuxuuna kooxdiisa ka saaciday inay soo gaarto finalka tartanka UEFA Champions League oo ugu dambeysay inay soo gaaraan sanadii 2007 sidoo kale rikoor badan oo kooxdiisa ayuu jabiyay ciyaartoyda kale ee liiskan ku soo baxay kuwaas oo aan helin dhibco ay ugu soo gudbaan saddexda ugu sareysa waxaa kamid ah Antoine Griezmann oo galay kaalinta afraad isla markaana helay 72 dhibcood Lionel Messi oo booska shanaad galay ka tirsan Argentina kaasoo helay 55 dhibcood Kylian Mbappe oo ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka wadanka Faransiiska oo helay 43 dhibcood Kevin De Bruyne oo ka tirsan kooxda Manchester City iyo xulka wadanka Belgiumka wuxuu helay 28 dhibcood Rafael Varane oo ka tirsan Real Madrid iyo Faransiiska wuxuu helay 23 dhibcood Eden Hazard waxa uu soo galay booska sagaalaad ka tirsan Chelsea iyo Belgiumka waxa uu helay 15 dhibcood Sergio Ramos ayaa soo xiray liiska 10 ciyaartoy ugu fiican qaaradda Yurub marka la qiimeeyay waxqabadkoodii fasal ciyaareedka soo dhaafay waana xidig ka tirsan kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka wadanka Spain waxaana uu helay 12 dhibcood waa maxay abaalmarinta xidiga sanadka ee UEFA waa su'aal ay dad badan isweydiiyeen abaalmarintan waa abaalmarin u taagan ciyaartoyda wanaagsan lama tixgelin doono dhalashadiisa kaliya waa inuu u ciyaaray koox ka dhisan wadamada Yurub fasalkii la soo dhaafay ciyaartoyda waxaa lagu xukmin doonaa bandhigoodii tartamada oo dhan horyaalada tartanka qaaradda Yurub iyo sidoo kale kan caalamiga ah yaa soo xushay musharaxiintan waa su'aal sidoo kale muhiim ah oo dad badan isweydiiyeen saddexdan ciyaartoy ee isugu soo haray abaalmarinta waxaa soo doortay xeerbeegti ka kooban 80kii tababare ee leeliyay kooxaha ka qayb galay labada tartan ee ugu sareeya qaaradda Yurub ee UEFA Champions League iyo UEFA Europa League fasalkii la soo dhaafay ee 2017-2018 32 tababare waxay ka socdeen koobka Champions League halka 48 tababare ay ka socdeen koobka UEFA Europa League waxaa lamaan ku ah 55 suxufi oo ka socda ururka ay ku mideysan yihiin saxaafadda Yurub ee loogu European Sports Media ESM balse suxufiyiintaas waxay kala matalayaan 55 wadan ee ku mideysan ururka qaaradda Yurub ee marka la soo gaabay loo yaqaano UEFA xubnaha xeerbeegtida ayaa lagu amray inuu mid walba soo doorto saddex xidig sida isaga la tahay xidiga dooqa koowaad ay siiyaan waxa uu helayay 5 dhibcood kan dooqa labaad la siiyo waxa uu helayay 3 dhibcood kan dooqa saddexaad la siiyana waxa uu helayay kaliya 1 dhibic tababarayaasha kooxaha looma fasaxin inay u codeeyaan ciyaartoyda kooxdooda tusaale ahaan Johan Klopp looma fasaxin inuu u codeeyo Mohamed Salah oo ka tirsan musharaxiinta waxaa sidoo kale jira abaalmarino kale oo iyana ku hoos jirta halkan abaalmarin waxaana la bixin doonaa xidigaha ugu fiican boos walba tartanka UEFA Champions League ee la soo dhaafay waxaana loogu kala sharaxan yahay sidan goolhayaha ugu fiican ee fasalka la soo dhaafay waxa uu sharaxan 3 ciyaartoy waana Alisson Becker oo hadda u qabta Liverpool balse waxa qabadkiisa Roma lagu qiimeyn doono Gianluca Buffon oo hadda ka tirsan Paris Saint-Germain laakiin lagu qiimeyn doono wax qabadkiisa kooxda Juve iyo sidoo kale Keylor Navas oo ku sugan Real loona qiimeyn doono wax qabadkii uu ku sameeyay kooxda kubadda cagta Real daafaca ugu fiican waxa uu sharaxan
saddex ciyaartoy waana saddex ciyaartoy oo ka wada tirsan kooxda kubadda cagta ee Madrid welina jooga waa Marcelo oo u dhashay wadanka Brazil, Sergio Ramos oo u dhashay wadanka Isbaanishka iyo sidoo kale ciyaaryahanka ku guuleystay koobka adduunyada ee Rafael Varane. Qadka dhexe waxaa loo soo xushay saddex ciyaartoy oo ku tartami doona abaalmarintan waa Kevin De Bruyne oo ka soo jeeda Belgium iyo Manchester City, Toni Kroos oo ka soo jeeda wadanka Jarmalka una ciyaara kooxda Real Madrid iyo sidoo kale Luka Modric oo gaaray finalkii koobka adduunyada isagoo matalaya Croatia ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Weerarka saddex musharax ayaa isku haysta waa Lionel Messi oo ka tirsan Barcelona, Cristiano Ronaldo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiin loo qiimeyn doono waxqabadkiisa kooxda Real iyo Mohamed Salah oo loo qiimeyn doono waxqabadkiisa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sidoo kale waxaa la bixin doonaa abaalmarinta dhanka dumarka ama xiddigta ugu fiican ee qaaradda Yurub. Waxaa u sharaxan Bernila Hader gabadha la yiraahdo oo weerarka ka ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg ee wadanka Jarmalka waxayna ka soo jeedaa wadanka Denmark. Ada Hegerbeck ayaa kamid ah musharaxiinta waa gabar u dhalatay wadanka Norway waxayna ka tirsan tahay kooxda Olympique Lyonnais ee wadanka Faransiiska waxayna ka ciyaartaa booska weerarka. Gabadha u dambeysa waa gabadha burburiyaha uga ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Olympique Lyon iyo xulka wadanka Faransiiska ee la yiraahdo Amandine Henry. Sidoo kale saddex ciyaartoy oo u sharaxan abaalmarinta xiddiga ugu fiican tartanka UEFA Europa League ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid waana saddex ciyaartoy oo laba kamid ah ay ka tirsan yihiin kooxda Atletico waana Diego Godin oo ka soo jeeda wadanka Uruguay iyo Antoine Griezmann oo kamid ahaa ciyaartoydii Faransiiska ay ku guuleystay koobka adduunyada iyo sidoo kale Dimitri Payet oo ka tirsan xulka Faransiiska laakiin ku guul dareystay inuu ku guuleysto koobka waxaana uu ka tirsanaa kooxdii finalka timid ee Marseille inkastoo daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta uu dhaawac ku baxay xiddigii hore ee kooxda kubadda cagta ee West Ham. fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaaladeena soo aadan hana iloobin inaad like saarto comment ka bixiso asxaabtaadana la wadaagto mahadsanid.